السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal waa markale iyo taxanihi barnaamijkeena taariikhda saxaabada. waxaan maanta barnaamijka diiradda ku saareynaa qisadii saxaabigii cabay caanihii nabiga sallallahu alayhi wasallam. balse marka hore daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, like la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan insha Allah. haddii aan dib ugu soo laabanno mowduuca barnaamijkeena ee ku saabsan qisadii saxaabigii cabay caanihii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. saxaabigaas waxa uu magaciisa ahaa Miqdaad ibn al-Awsad, ilaahay ha ka raali noqdee. waxa uuna ka mid ahaa saxaabadii ugu horeysay ee islaamtay. waxa uuna ahaa saxaabiga kaliya ee ku dagaalamay faras dagaalkii Badar inta lagu guda jiray. haddaba saxaabigan waxa uu ka sheekeeyay qiso cajiib ah oo isagu ku dhacday xilligii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxa uuna yiri, aniga iyo laba ka mid ah saaxiibadeydii ayaa nimid masjidka ayadoo ay indhaha iyo dhagahaba ay nagala tagtay gaajadii. markaasaan isu soo bandhignay saxaabadii nabiga, bal haddii ay ku jiraan cidna kaxaysa oo cunto na soo siisa. waxa uu yiri Miqdaad, cidna wayna kaxayn weysay. kadibna waxaan u tagnay rasuulkii ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. markaasuu na kaxeeyey oo uu na geeyey gurigiis waxaa xilligaas joogay 3 riyood ama caysaamo. markaasuu nabigu dhahay, riyahan inoo maala oo 4 teenaas ayaa caanaha iska leh. kadibna waanu lisnay caanihii oo aan cabnay, nabigana qaybtiisii ayaan u dhignay buu yiri Miqdaad ibn al-Awsad. Miqdaad ayaa yiri, nabiga waxa uu ahaa sallallahu alayhi wasallam mid yimaada guriga xilliga habeenka soo gala, waa uuna salaami jiray salaan uu maqlayo qofka soo jeeda, sidoo kalena aan kicinaynin dadka hurda. kadibna masjidka ayuu tagi jiray si uu u soo tukado salaada. kolkuu soo noqdo waxa uu cabi jiray caanihii aan u dhignay. dabadeedna maalin ayaa shaydaankii ii yimid buu yiri Miqdaad, wuxuuna ku yiri, Muhammad wuxuu leeyahay saaxiibo badan oo cunto iyo caanaba ka dharjiya ee iska cab caanihiisa. Miqdaad, waan cabay buu yiri caanihii. markaan caanihii ka dhargay ayaan isdhahay, bal hadda seexo, laakiin waan seexan kari waayay. kadibna mar kale ayaa shaydaankii ii yimid oo igu dhahay, caawa ayay kugu daran tahay, hadda ayuu Muhammad imaanayaa oo markuu caanaha waayo ayuu ku habaarayaa, markaasaad khasaaraysaa adduunyo iyo aakhiro. nabigii ilaahay ayaa yimid, markaasuu fiiriyey weelkii caanaha ku jireen, mise waaba maran yahay. kadibna gacmaha ayuu sare u taagay. markaasaan isdhahay buu yiri Miqdaad, waa taas oo waa lagu habaarayaa. balse waxaan maqlay nabiga oo dhahaya, ilaahayow quudi cidda na soo quudisa, ilaahayow waraabi cidda na waraabisa. kadibna intaan booday ayaan doonay in aan soo gowraco mid ka mid ah riyihii. hase ahaatee waxaan si kadisa u arkay in 3 riyoodba ay dararsan yihiin oo caano ay leeyihiin. markaasaan soo qaaday weel weyn oo reer Muhammad aanay weligood caano ku shubin. dabadeed caanihii ayaan xooriyey ama xumbeeyey, waxaanan hor dhigay nebiga oo aan ku dhahay, cab rasuulka ilaahayow. markaasuu cabay. haddana waxaan idhi, cab rasuulka ilaahayow. haddana wuu cabay, markaasuu dhargay. kadibna aniga ayaan cabay. Miqdaad ayaa ugu dambeyn yiri, markaan dhargay ayaan fariistay anigoo qoslaya. markaasuu u yiri rasuulka ilaahay, maxaa samaysay Miqdaadow? kolkaasaan uga sheekeeyey wixii aan ku kacay iyo wixii shaydaankuba iiga sheekeeyey. rasuulkii ayaa ku yiri Miqdaad, taasi waa raxmad xagga ilaahay ka ahaatay, ee maxaad labadaada saaxiib u kicin weyde hayna la cabaani caanaha? Miqdaad ayaa ku yiri, waxba igama galin rasuulka ilaahayo, haddaad adigu cabtay aniguna aan cabay, sidoo kalena ducadaadii i asiibtay. intaan ayaan ku soo gabagabeynayaa qisadii koobneed ee saxaabigii Miqdaad ibn al-Awsad. guud ahaan daawadayaal dhageystayaal, taxanihii barnaamijka taariikhda saxaabada waa naga inta aan dib ugu kulmi doonno mid kan la mid ah. nabadgelyo.